بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo bishu tahay 7 bishii 10aad 2021 waxa aanu ku soo dhaweynaynaa airportka cigaal ee magaalada Hargeysa gudoomiyihii guddiga sahan barwaaqo علي قالب isagoo bariyahaas muddo ku maqnaa ariga Mareykanka waxaan leenahay soo dhawow aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa dalkaagii waxaad naga tagtay iyadoo doorashadii si wanaagsan noogu qabsoontay oo Soomaaliland ahaan hadday tahay madaxweynaha iyo hadday tahay guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada adduunka oo dhan wada majeertay oo aad iyo aad ammaanteedu iyo wanaagsanadeedu iyo hufnaanteedu ay meel kasta uga dhacday halkii uu dalkii kor uga sii socdaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxa kale oo xoogaygan yar ee safmarka ah ee ma garanaysaa in ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay adduunka oo dhan uu ka kor qaado ilaahay dalka horumar iyo barwaaqo ilaahay inuu ka dhigo ونكون سود ويننا ويلكم بانو كلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما هذا إلهي كسكو وعنو هالكن قعم فرن نكون سود ويننا علي يوسف قالب قدوميها جديد الصحن برواقة أما جديد هرمرنتا تيجامد السلح لي سبوناك هرجيسة وحنا نكون سود ودلكاجي علي soo dhawow waanu ku faraxsanahay maanta inaan ku soo dhaweyno anagoo gudidii xubnihii gudida ah marka soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ku soo dhaweeynaa dhammaan gudidii sahan barwaaqo gudoomiyihii sahan barwaaqo cali yuusuf qaalib oo markaga maqnaa Mareykan hawlo shaqo ugu maqnaa iyo hawlo kalaba gudoomiye waxaan ku soo dhawow dalkaagii muddo dheerna gudidu waa sii joognay hawluna way fiican yihiin dalkuna aad u wanaagsan roobkuna u daay nimcaduna u daay ma sha Allah dalka sidii aad naga tagto ka sii barwaaqaysan weeyaan gudoomiye soo dhawow welcome aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay ilaahay baa mahadle marka hore igu soo nabad celiyay wadankii hooyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaan nabadgelyo ku imid anoo soo maray taraag dheer runtii oo 16 saacadood oo nan istaba aad iyo aad ayaa ilaahay mahad ugu celinaya mahad labaad waxa la gudida sahan barwaaqo hogaaminaya guddiga jaamac gudoomiye ku-xigeenka jaamac dabagoroyaale guuleed xogaye deeq muuse cabdikariin oo faarax iyo dhammaan dadka kale ka soo qayb qaatay ee dhalinyarada aad iyo aad baan dhamaantiin isku mahadnaqayaa inta maqanay soo gaari kar weydeen waxaan leeyahay idinkuna insha Allah bismillaahir kariim qalbiga ka jecleeyeen waa is arkayna hadii ilaahay dhaado runtii guddiga sahan barwaaqo gobolka Mareykanka iyo Canada iyo North America marka la isku daro la yiraahdo aad baa looga taageersan yahay waana la soo hambalyeeyay guddidana waxay mas'uul ka tahay magaalada Hargeysa ee xudunta ah Salaxle iyo Sabawanaag iyo dhammaan wixii kale ee hoos yimaada runtii marka waxa weeye guddidu waxay doonaysaa inay horumar ka samayso deegaamadaas oo dhan horana way uga samaysay imakana way laabi doontaa insha Allah bismillaahir kariim mid baan doonayaa maanta halkan inaan ka cadeeyo oo ma garanaysaa waxa Soomaaliya ku mahmaadaa si xun u sheeg wax sixir ka daran mid aad loo sheego guddidu waxaan sheegayaa inaanay saddex xisbi midna ahayn oo u siman tahay saddexdaba saddex xisbina ay u siman yihiin hadday doorasho noqotona qof waliba codkiisa xor u yahay laakiin wax la yiraahdo campaign oo xisbi loo campaign garanaya saddex xisbi midna aanu jirin dad badan baa intaas ka qaldantaa ballan aan ku qaaday markaan Hargeysa tagay inaan sheego guddidu waxay u shaqaysaa danaha deegaamada ay ka soo jeedo siyaasadda iyo deegaanka iyo horumarka laakiin cid ay u shaqaysaa ma jirto saddex xisbi way u siban tahay mid walba gacmo furan bay ku soo dhaweynaysaa waxaanay maalinta doorashada qof waliba markay guurteeda tahayna qof waliba qofku dooranaya markay tahay madaxweynaha qof waliba qofku dooranaya isagoo xubintiisa laakiin campaign wax la yiraahdo oo anagu aan xisb u sameynaa maxaafid iyo macaaritoona ma jiro way noo sibayn xisbiyadu intaasna doonayna cadeeyo
aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhaweyntiina